لله والصلاة والسلام. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أمام من اتبعني. waxaan rabaa shir jiraayad inaan halkan ku qabto anigoo ka hadlaya marka dhacdooyinkii soo dhacay ee gobolada odol ka dhacay iyo arrimaha tafaasiilta uu bixinayo. waxaan rabaa marka halkan kala hadlaya dhawaq dheer iyo dhawaq gaababa aan kula hadlayaa dadka gobolada odol degan iyo halganka la doonayay ee Suldaan Wabar iyo guud ahaanba maaragtay dalladda guud ee Awdal Movement Group amase maaragtay soo sheeg jabhadaha gobolada galbeedka ay ka wadeen, hadday bariga tahay iyo hadday waqooyiga tahay oogada, hadday tahay galbeedka Boorama intaba. runtii halgan marka la gelayo ereygu ku dhawaaqistiisu way fududahay, laakiin gelistiisa iyo hawshiisu waxay u baahan tahay dhabar adayg iyo talay u baahan tahay. Soomaaliduna waxay ku maamahdaa nin waayeeli siduu wax u arko iyo umulusaba siday wax u arkaan si wax uma wada sheegaan, siday wax u arkaan uma sheegaan. tafaasiilta ka soo baxaysa iyo wararka rasmiga ee naga soo gaaraya iyo sida ay xaaladdu u jirto waxa weeyaan waa wax kaaf iyo kala dheeriya. waxaad moodaa inay tahay awr dhinac ka raran. halgankuna waxa weeyaan dad baa curiya, dadku laba unbay u qaybsamaa, waa talakeen iyo aqbalkeen uun, labadaa wax dhaafsiisan ma jirto. talada adiga kaa maqanna walaalkaa ayay ku jirtaa. run ahaantii faahfaahin dheeraada ayuu suldaanka iyo golaha dhaqanka mid ka mida ah oo weliba qalbiyadda ugu badan ee goboladana haysta loogana tun weyn yahoo ay jiraan golo dhaqmeed uga tun weyni. laakiin muhiimku waxa weeyaan anuu hore ayaan arrinkaa u soo sheego waxaan idhi sartu meel bay ka qurunsan tahay, ee halkay sartu ka qurunsan tahay haddaan boogta meesha aan la taaban oo aan gunta laga dhayin ma bogsooto. waxay u baahan tahay bogsiimo ma hayno, salaaduna meel bay ka xidhmi laadahay. waxa wanaagsan qofku inuu ogaado xanuunka haya. hadduu markuu ogaado ee uu dareen xanuun ku dhaco cudurka haya, marka la gartaa uu daawadiisa helaa. runtii daawo ayaynu u baahannahay. daawadaasina ani ahaan tala waxay iigula gudboon tahay si uun baan u arkaa oo kolay qof fikir dee waxa weeyaan unbaa igu jira macnaha fiishankayga markaan hadlayo aragtidayda iyo muuqaalkaygu sibay wax u yar qaldan yihiin. ilaahayna hana garansiiyo horta talada saxda ee wanaagsan. ilaahay baa talada rasmiga haya. dadku hadday wax saxa ay ku joogaan oo dariiqa rasmiga ilaahay subxaanahu watacaala oo saxa ay ku taagan yihiin waxba kama xumaadaan. laakiin waxaa loo baahan yahay in dib isku noqosho fara badan la sameeyo
war waxbaa inaga qaldan ee waxaa inaga qaldan fashiluu iyo fashilku halkuu ka yimaado iyo arrintu sartu halka ka qurunsan tahay inaan taabtaan rabaa. Waxaa la yidhi ilka iyo hadalba waa la caddeeyaa. waxaan rabaa halganka waxbaa ku gadaaman. waxa weeyaan tala meel marka lagu soo xidho waxbaa fura ee waxa daba furka wadaa runtii in la ogaado muhiim oo la sheegaa wanaagsan. dadka walaaluhuna runta hadday isku sheegin xoolama wada dhaqdaan. walaalo isjecel way xoolo badiyaan, laakiin walaalo isnacab way xoolo yareeyaan. marka waxaan rabaa in harinta halkaa ka jirta ma jiraan horta wax la yidhaaho run ahaantii nacayb guud oo la isku qabo bannaanka laga soo dhigayaa ma jira, laakiin waxaa jira taladaan ku kala duwannahay. mowqifka iyo waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin waxa weeye waxna waa wax masiir ah, waxna waa wax maaragtay ii soo sheeg aan fudud oo laga tegi karo. runtii masiir lagama tegi karo oo wax adiga tafiirtaada iyo adigaba ififaalad kugu yeelan doona ayaa meesha yaala. waari maysida wara kaa hadho magac baa wanaagsan. waxa wanaagsan wanaag inuu kaa hadho oo qofku kaga tagaa wanaagsan adduunka. marka waxaan u soo noqonayaa arrintaasi waxay ku iman kartaa horta wax walba wuxuu ka imaadaa sayska iyo hoggaan buu leeyahay. war hoggaanka ayaa inaga qaldan ee sidii kale hayiin weynu leenahay oo awr hayiina iyo baarqabba waana inoogu jiraaye hoggaankiibaa qaldanay. hoggaanku halkuu ka saxmi laayahaa muhiimka in la isweydiiyo ah. madaxna meel ka sarreeyo oo la saleexaa ma jiro ayay soomaalidu ku mahmahdaa. war hoggaankiibaa qaldan. hoggaankuna hadduu kaa qaldamo dee maaragtay socdaalkaad socotaa iyo maaragtay ii soo sheegeen awrka kuu raran ama maaragtay ii soo sheeg duunyada aad wadataa way hallaabaan. midba meel buu ka dhacaa. safarkuna wuu kala lumaa ee arrin baa jirta qaldane. anigu arrintaa waxaan leeyahay hoggaanka ayaan saxsanayn. hoggaanka cidda ah ayaan wada socon. horena waan u soo sheego waan ku celinayaa. gaadhigu wuxuu ka socdaa waxa weeye waa ijiin iyo qolof ama buuri siday soomaalidu u taqaano. ijiinka iyo dirawalka isteerinka dirawalka haddii lala hayo gaadhigaasi ama waa gaadhi qalibma ama meel xun buu ku socdaa. ijiinkii gaadhiga waxa weeyaan hadduu ijiinku wax ka qaldan yahayna dee gaadhigaa dhaqaaqi maayo. ijiinkii baa qaldan. qaybaha ijiinku ka kooban yahay qayb ka mid ah xun. birtaa xun in la hagaajiyo mooyaane oo maaragtay isoo sheeg makaanig wanaagsan uu hela mooyaane waxbaa inaga qaldane. waxaa la qaldan bal dib ha la iskugu noqdo. waxa wanaagsan xisaabtu halkay ka saxmi laadahay in laysla ogaado oo dib layskula dhigo. waxaan maanta aada u maqlayay oo hadallada isoo gaadhaya oo ahaa suldaanka oo hadlayay oo maaragtay ka hadlayay halganku halkuu soo marayay iyo 2 kaclaynta 4 kaclaynta jira. suldaankana isaga naftarkayga waa suldaankaygii, laakiin waan ku leeyahay tala inaan maaragtay ii soo sheeg aniguna aan micnaha
la wadaagoon idhaa hadda sidaasay ku qurux badan tahay way fiican tahay wixii go-aankana isagaa iska leh laakiin isaga mid baan markaa oranayaa marka aad hadlayso ee aad la hadlayso miidiyaha halganka arrintan laba meel isma qabato halgan baanu ku jirnaa oo halganku wuxuu leeyahay meel mool la gaadho oo la doonayo in la hiigsado ilki iyo hadalba waa la caddeeyaa in la caddeeyaa wanaagsan moolkaaga weli waxbaa ka qaldana maad sheegin wax mugdi iyo madmadow baa ku jiro waxa aad weli ku rafanaysaa alifka alif waxmaale aad ka tagta albaqru kugu qabta bay Soomaalidu tiraahdaa weli waxaynu ku wareegeysanaynaa halkii aynu ka soo bilownay hore iyo halkii hore wax ka qaldaneen intaanu soo wareegno ma dib loogu noqonayaa war hadalku ha ahaado wax toosan anigu labayn maayo laakiin waan saxdan taabanaya labayntuna ma fiicna in la labalabeeyo war ma waxa la rabaa inaynu dadka aan la degannahay ee gobolada waqooyi jooga ee horena wax loola dhisamay in aanu saamiga kala hadalno nidhaano annagu waxbaanu doonaynaa mana diidanin wax la yidhaaha laanta mise waxaynu rabnaa gobolkeena awdal in maamulkiisa iyo systemkiisa gacanta lagu soo celiyo hadalku wuu kala yahay weli wax farbaa gudan suldaanka marka waxaan leeyahay hadalka toosi ma waxaad rabtaa saamigii aad ka hadashay hore aad oga soo baartay aad ka biyo diiday baad ku hadlaysaa mise waxa weeyaan salaada meel baan u wada tukanaynaa iyo dadka qaarkoodna meel baa loo kala tukanayaa sidii ninkii yidhi nimankaa reer hebel ee intuu magaalada yimid gabiilay soo istaagay ee yidhi maaragtay isoo sheeg salaad jimco iyadoo la tukanayay mid yidhi salaadii markuu 2 ragcadood la tukaday yidhi waryaadaheen iyadoo xirguf yar ka dhaxaysa imaamka beesha uu ka soo jeedo ama cid uu ka soo jeedo ayuu wuxuu yidhi nimankii reer hebel ahaa ma raba inaan hadalka maaragtay daaha ka qaadoon ilaaha saas nimankii reer hebel ahaa salaadii ilaahayna way u dhigteen anaga ilaahayba col bayna la yihiinoo salaadii ilaahayna way gooyeenoo waxay ka dhigeen 4 tahayd bay 2 ka dhigeen meel walba dagaal bay nugula jiraane anigu wallaahi inaanan 10 tukan oon 4 tukan oo 5 tukan ma garatay ma sidaasaa la rabaa qaar ka mid ah waxa weeyaan salaadaha qaarkood baa 4 la tukanaya inaguna qaarna 2 tukanayaan miya mise waxa jira ii soo sheeg wadan aynu ku wada socono oo jirta oo meelka laba maaha in labalabeeyo maaha hal mid weeyaan haddii laba ay tahay weli waa la labaysanahay haddii laakiin mid ay tahay waa laga wada hadli karaa taa laakiin arrinta muhiimka ah weli waxa weeyaan waxaad moodaa in laba jirto dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin wax la yidhaaho in mabdicii hore iyo sidii wax noogu qaldameen haddii la doonayo resolved in lagu sameeyo ama la hagaajiyo dib habayn lagu sameeyo mowqifkii hore ahaa wax wada lahaanshaha meesha laga tago waxbaanu dhigeen la lahayn weli waxbaa gudan wax weeye markaasi waxbaa la xeerinayaa Soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa dumaash nin dumaal nin ka xishooday ama dumaal nin ka baqay kama dhalay Soomaalidu tiraada wararinka yaa laga cabsani hadalku wuu kala yahay anigu runtaan qeexaya hadalku wuu kala yahay annagu waa fikirka aniga ay la taayeen qabo digayga qaar kamid ah inta badan majority 90% sidaan qabana ama 100% ii soo sheegana 75
waxa ay qabaan in taladu halkii ay ka qurunsanayd waxay ahayd halkii hoggaankii hore xumeeyey hoggaankaas oo ahaa hoggaan iyo talo loo wada dhan yahay oo si guud dadka gobollada awdal dega ama beelaha gobollada awdal dega aynan ku dhammaystirneen xilligii 1991kii markii lagu aasaasayay Somaliland laakiin marka ay hadlayaan oo ay siyaasiyiintu hadlayaan waxay markhaati beenaale ka dhigtaan dad iyaga imika ka nool oo xilligaasi wax qalday baa isa saxaya oo wali saxana ah nin walba waxa la yidhi nin walba qumanihiisa qoorta u sulan allah u naxariistay horta ciddii meeshaa tagtay inta badan way dhimatay inta nool baa maanta qaar ka mida la yidhaahaa oo looga dhigtaa markhaati beenaale lagu markhaati beenaalaystaa una marakaca markaa weli arrinta la iskuma raacsanaa bay ka dhigan tahay anigu markaasi waa markaa majority-gan ka hadlaya majority-ga waxaan aaminsannahay dadka aan anigu ugu weynahay waa dadka la qalday dadka masiirkoogii lagu riday godka weeyaan waqtigaasi dadkan anigu waqtigaa ugu weynaa dadka masiirkooga la qaldayban weeyaan ee godka maanta halkaa jooga alifka alif wax maala kaaga qaldama albaqru kugu qabta arrintaasi waxa weeyaan xadhig uguma xidhnin meel waa in runta laga hadlaa waxaan markaa leeyahay islaam baa ninkaygii ka duday waxay tiri waa la weydiiyey maxaad ninkaagii uga soo duday baa la yidhi waxay tiri ninkayga hilib badan baan u sameeyey oo u kariyey markuu hilibkiiga dhameeyeyna waan ka quustay markuu laftii dhuuxa ka cunayna waan ka gargoostay bay tiri annaga runtaa wanaagsan annaga Somaliland waxaanu ka quusannay ama nimanka dhigga ee nala degan aanu ka quusannay marka si sharci darro ah iyagoo aanan waxba xiirin in 750 qof waliba ninka maanta maamulka hayaa intuu yimid ku dilay haddana uu ku booyayo mar walba waxay markaa qaldanayd boogadhayid iyo wax wanaagsan oo meesha markii hore lagu wada hadlay shirka la tegay iyadoo waxba la iska weydiinin xaal marinta iyo dhaqankii Soomaali lahaana la soo marin ayaa meesha loo guday oo loo dusay hadalka yaan la karo waa la dusay ciddii dustayna allah u naxariistay intii dhimatay intii nool war markaa waxa weeyaan waxa la yidhi haruur daatay hambada la qaban jiray wax kastaana dabaqabashay leeyihiin anugu go'aan waxay ila tahay haddii wax la xeerinayo halkeega xeeris maanta ma jirto wax xeeris la yidhaahaa inaanu xeerinaa maanta inooma taalo waxna looma xeerin annagaba wuxuu yidhi walaalkay sidaan kuugu lisay walaalkay igumaad hambaynin annagu sidaan wax ugu lisnay laguma hambaynin dad baa maanta isbidaya oo 10 goor waliba hadalkaa ku celceliyey anigu waan hadalka banaankan ka soo bidhigaya iyadoo uu ku celceliyey waxaanu taariikh ahaan xusaynaa dib ugu xusaynaa waxa weeyaan taariikhda ku soo martayba laga tusaale qaataa runtaa wanaagsan markii iyadoo arintaa laga wada hadlay oo boogadhayid la doonayay qaabkii la doonayay lagu boogadhigi lahaa lama soo marin wadadeedina odayadaasi ma soo marin runtaa wanaag hadalku kala yahay beesha dhaxa ma soo marin anigu nin yar baan ahaa laakiin talada dad baa lahaa dadkii talada lahaa baa qalday waxa weeyaan waxa wanaagsan haddii gaf uu qof ka dhaco walaalkaaha inuu kuu soo noqdo kuu soo fadhiisto xaalkii iyo wadadii lahaa uu soo maro looma marin ififaaladii iyo dhibaatadii la gaarsiiyaa weli muuqata turxaanteedii baa weli muuqata lama dhayin taasaa soo celinaysa isagana weli wuxuu aaminsan yahay oo dambiga ama faldambiyeedka qofka gala dhibane iyo qofka dhibta geystay waxa weeyaan waa inuu tanaasulaadka isagu la yimaado inuu geysto arrinkaa uu qirsan yahay laakiin saxsanaan fara badan buu isbuujinayaa waxa taa markhaati u ah waxa jiray xilligii la isku qabtay markii golaha deegaanka ee doorashooyinkii golaha deegaanku dhacay ee gobolada Salal u yimaaday xurguftii ka dhacday xilligii uu siiraan yahay talada muusana uu ahaa gudoomiyaha xusbiga
kulmiye aan ma qurmiskaan idhaah anuu hadalka kalama qabanayo qurmiska ah anugu waxaan leeyahay qurmi waana hadalka la yidhi weeyaan dadku inta badan ay aaminsan yihiin dadka gobolada waqooyi degan yihiin waxa weeyaan waa hadalka la aaminsan yahay waayo kulmiye waa wax kulmiya si kurtino waxaad noqotay waxaan ku mooday mise waxaad noqotay dad badan baa ku hingoobay marka taas bay ka timid hadalkan aanaysti ee qurbiska ah marka waxaan leeyahay markaasi talada xilligaas markii la iskugu yimid ee arinka la yiraahdo la saxo anagu waxa weeyaan 10 baanu yeelanay iyaguna intaas ay yeesheen waanu ka badanahay de waxa weeyaan doorashada dimuqraadiyad la eegayo de waxa weeyaan election kii dhacay ha de ma ku guuleysanay mise kuma guul waa ku guuleysatay baa timid laakiin maxaa meeshii yimid nimankii arinka lahaa ee xusbigu soo dhaxgalay isagoo markaasi aan decision-ka lahayn laakiin ay jirtay cabinet government-siga ama systemka han ilaaha maamulka markaa jira yaan dawlad ka dhigin dawlad meesha ma jirto been isku sheeg there is no recognition in the Somaliland ma jirto wax recognition been isku sheegin ari shuruux kama ilbaxo ma haysano taasi laakiin waxa jiray maamulka aanu dhisanay markaan iskugu nimid ee uu siiraaya arinka ka hadlay ee la isweydiiyay Muuse wuxuu ahaa ninkii hadalka gaarka ah qabsaday ninkii loo soo diray ee la yiri waxa weeyaan xalinta khilaafaadka ka jira gobolada awdal iyo salal waliba salal ka jira soo dhamee awdal buu soo raacay Allah u naxariisay Cabdi Waraabu la socday boora meel iskugu yimid odayadii buu kula kulmay halkaas hotelka rays markii la iskugu yimid ee halka lagu wada hadlay hadaladii la yiri wuxuu kamid ahaa war waxaan idigu soconaa walaalaha iyo tolka iyo Samaroona waxaan u soconaa abaalaan idigu leenahay bisoo istaagay su'aasha hadalka waxa ka jawaabay odayadii oday kamid ah wuxuu ku yiri war maada abaal noo sheeganaya mise anaga abaal kugu leh wuxuu yiri ana abaal idigu leh Somaliland ana keeno u soo halgamo mujaahid ah hadalkii labaad ee la siiyay wuxuu ahaa war waxa weeyaan adigu 750 qof ninkii ku dilay dhibaatada geeyay baad ahayd halkan turxaantana ka keenay ninkii maanta hadalka oran lahaa ma tiide annagu ninka ku lisay baanu nahay nabad iyo wixii kale nabadda maanta boorama Somaliland ku laaroonaysa ninkii boorama kugu dhisay baan ahaa halka markuu marayay hadaladu eeg waxa wanaagsan marka arayga nink halkaas ma aaminsan yahay ilaa imika ma aaminsan yahay in isagoo dhibaatooyinkii geystay haddana libin ma siinaya ma siinayo runta wanaagsan waxa weeyaan walaalaha dhigeenuna isma qabtaan isqabasho ma laha hadii maanta waliba waa lagu garab joogaa yaanan hadalka lagu noqnoqonin iyadoo lagu garab siinayo iyadoo ay waxyaabo badan ka qaldan yihiin Somaliland annaga waxa iyaga dhaxdooda kala maray iyaga xallisan kara laakiin wax baanu wada lahayn hadalka yaan laga gabanay waxa weeye 1960kii haddii maartay ay duuftay dadka gobolada waqooyi ay ilduufeen koonfur ilduufeen annaguna gobolada awdal dadka dooga waxa ilduufeen oo qaladkoogii saxayaan 1993kii markaanu halka shirka boorama lagu dhigay marka waxa wanaagsan annaga halgan hadii la doonayo kala saara halgan hadii la doonayo halganku wadan loo soo maruu leeyahay waxaan leeyahay Samaroona iyo gada Buursow halganka wadadiisi u soo mara hadii laakiinse uu yahay maartay waxaan xeerinaynaa magaalada laga daayay qabqabta iyo maartay caruurta la toosinay dadka laga toosinay laga daayay baan isku sheegay aniga waa go'aanka aniga ku hadlaya afka dhalinyarada afka qurba joogta iyo aqoon-yahaniinta ku hadlaya aniga ku hadlaya garabka siyaasadda afka garabka siyaasadda gobolada waqooyi ee dalada ay ku mudoobeen ee layla dhaqdhaqaaqa sinaanta iyo cadaaladda mid midna waa mid aan kula hadlayo dhigayga aan la dhiiga ahay oo aan leeyahay arinkaasi waa qaldan yahay halaysi saxa markaasi waxaan rabaa suldaanka waan taageersanahay waanu ku taageersanahay arinkaasi laakiin wax ka bedel ha ku sameeyo dib habeena ku sameey hadalku halgan baan ku jirnaa hadalka waxa ka cadeeyay halgan waan ku jirnaa ilaa ninba intuu doonaha soo wado afar goor baan halgankaas u dhacay waana ninba inbu ka soo qabtay
intiisiibuu wadaa marka isaga arinkii suldaan cilmi waxa weeyaan abubakar cilmi wabar waxaan leeyahay arrinkaasi halgankaagu ma aha kama tegin keliya waxaase waxaad ka tagtay oo go'aanka waxa weeye markii aanu wada hadlaynay ee wada hadalku ahaayee la isku dhibrinayay ayay ahayd inaanu markaa weeye laakiin iyagu mowqafkiibay taaganaayeen ilaa imikana uu taagan yahay muusena aaminsan yahay doorashadana ku soo galay tanaasulna ma laha annaguna tanaasuli mayno wixii hore u dhacay qaldamay baanu saxaynaa gobolada awdal anigoo ku hadlaya saxayana suldaanka waxaan leeyahay oo aan halkan soo jeedinaya waxa weeye halgankaasi waa halgan lagu doonayo gobolada awdal in maamulkeygii la isku soo celiyo somaliland way kala tagtay wax iskuguma jiraan maanta xaaladaynu maraynaa waa xaalad kala guur ah nin walba waxa u baahan tahay markaasi haddii xal la doonayo ma waxa xal haddii la rabaa xal wax la iskugu yimaado tala guud way qaldantay doorasho iyo xusbi iyo wax soconaya ma jiro ninkii xisbi aaminsan isaga aaminsan laakiin waxa jira qalad baa dhacay maadaama uu dhacay waxa weeyaan gogol iyo maartay isoo sheeg meel loo noqday marjac loo noqday lahaan jirtay marjaceegii ha loo soo noqdo haddii la iskugu imanayo la isku afkaranayana waa la isku afkarani haddii la isku diidayana waa la isku diidi laakiin marjaca in la iskugu imaada ciddii gogashaa fidin lahayd oo u fadhin lahayd cidda isbidaysa weeyaan maanta in ay awoodda haysato iyadaa looga fadhiya waxa hadalka yaan la kala leeleexinin beesha dhaxaan uga fadhina idinku waxaad isku haysaan idinka arrinkaa ku kala baxay laakiin idinkan idiga fadhina waxa weeye hadday taa noqoto nin walba waxa weeyaan deegaan buu ilaahay dhigay meel buu ilaahay ku noolaysiiyey dadka walaalaanuna walaalnimadu ha idin deeqdo hadday ina idin deeqdo halkiina aad ku deganaataan baan aaminsanahay laakiin wixii la oran jiray wada lahaansho somaliland la yidhaaho horaa la iskugu diiday waanaan isku fahmi weynay arrinkaasi way soo jiidatay 30 sano 20 sano ayaynu ku jirnaa tusbax furtayna waanu noqonnay waxa weeyaan talo there is no resolved waxa laga ama guddiga xalinta khilaafaadka soo dir political resolution the group ka aad soo dirtay ee leedahay mechanism bay u noqonayaan dawladda meeshaad ka raadisaa qaldan annaga waxa weeyaan nooma noqon kara xalinta khilaafaadka meeshaad ka raadisa waa cabdiraxmaan oo calina run baan kuu sheegaynaa tulwaa idigaa u yaqaana annagu uma naqaane qalad kuwa hore u geystay isaga naftarkiisa ayay wax ka qaldan yihiin oo kula mida dambiyadii uu geystay cid uu maartay uu yidhi ma jirto waanu kula mid yahay waxba ayaan la warureegin weli waxa lagu meeraysanayaa meeshii hore ee sartu ka qarsoneed runtaan la iskugu yimaado marka taasi halkaas iga tahay aniga waxa weeyaan ma aha ma xanaaqsani mana dis laakiin waxa wanaag hadalka wanaagsan ee rasmiga ah in la isku sheego waxa ilka iyo hadal yeelkaba waa maartay waa la cadeeyaa runtu waxay jirta saas weey been yeen isku sheegin waxa weey marka waxaan u sheegayaa marka midna waxaan laada gobolada awdal baan kula hadlaya midna way dhiga aanu jaarka nahay ee walaalaha nahay deegaanna aan wada degannahay ee ilaahayna wada dejiyaan kala hadlaya taasi waa taa waxaan leeyahay idinkaan idugu imaadno wadda saxa warkiinu ha cadaado wadda aan idugu nimaadno idinku sameeya haddaad dhexdiina heshiinaysaan iyo haddii kale taa mid idinka idii taalo weeyaan laakiin wax la yidhaaho wada lahaansho somaliland la yidhaahaa maanta waxa ka jira kala duwanaansho siyaasadeed baa ka dhacday wax isku quuri waabaa ka dhacay nin walba waa xaaladana way god bay ku dhacday maanta waxay maraysaa markaasi halkii ugu dambeysay haddii la doonayo in la isxagxagto waa halkeega laakiin diyaar baanu nahay xagasho haddaad diyaar u tihiin haddii la doonayo laakiin in wax la soxo annagu idinkaan leenahay waxaan la hadlayaa salaadiinta dhigga gobolada maartay waqooyi galbeed ee beesha dhexe baan la hadlayaa arrinta idinka idii taalaa waa hadalku siduu uu yahay annagana go'aankayga cabasho wax la yidhaahaa ma jirto wax cabasho la yidhaahaa meeshaas way ka baxday laakiin go'aankaygu wuxuu yahay gobolada awdal maadaama uu arrinkaasi burburay annaga gobolkayaga sideedii ayaan doonaynaa haddii laga bixi waayana
oo la doonayo xal la doonayo waa in ciidamada laga qaataa waa in barasaabku ka baxaa waa in ciidanka la keenay iyo kuwa imika laga soo qaadayaan ogahay ee maanta lagu diyaarinayo barjaax xerada hubka dhigistana lagu diyaarinayay ee la doonayo gobolka wadal guutada laga soo qaaday bariga waanu la soconnaa wax naga qarsan ma jirto haddii xal la doonayo waa taas haddii xal marka aad ku raadinaysaan xukuumadii awood baan ku raadinaynaa waxa weeyaan nin walba waa meeshay geeshay waxaad anu kala helnaan leenahay taasaan anu halkaa ku daynaya labada intaasi ayaan halkaa kaga baxaya waxaan midna la hadlaya marka gobolada dhigga ayaan la hadlaya war idinku tala iskugu imaada waxbaa idiga qaldan gobolada awdal iyo salal waxbaa idiga qaldanay waxaan arkayay oo shalay aan muuqaal ii ahaa oo aan indhahayga saaray oon arkayay war meeshii kacdoonku ka bilaabmay ee dhibtu ka dhacday weligeed waxa weeyaan dadka ood wadaagu hadday isku dhacaan waxbaa la wanaajin jiray oo waxa weeyaan iisoo sheeg waa weligeedba beeri iyo dil iyo maaragtay dadka waa iskaga ima jiro dad maaragtay walaalo oo meel wada degan weeyaan laakiin waxaa jiray arrin siyaasadaysan oo xukuumaddu siyaasadaynaysay maanta arrintii marka laga cabanayay ee nimanka arrinka ahaa in nimankii shalay cabanayay maanta inay calamalumaan oo dabadeedna maaragtay saleebaan xagal toosiye halkaa awr lagu guddoonsiiyey waxaan arkayay qaab si qaldan ah hadalku wuu kala yahay ma idinku waxa weeyaan arrinta beerta iyo dhulka aad isku haysaan ee ciise idin dhex yaalay arrinkiinu ku eegyahay mise waxa weeyaan halganka labadaasuu kala yahay arrinta halganka ayaan anigu soo noqonayaa taasi waa arrin la doonayo in lagu jahwareeriyo waa aan soo meertaa ka dhacday ee muuse blood iyo gruubkiisa soo meerta ku jiree waqtigii iskaga lumiyeen ay soo wareegeystaan iyo dana gaara ay leeyihiin taasi waa mid iyaga u taalo annaga waxa weeyaan mas-uuliyaddeeda nagama saarna shaqana kuma lihin soo meertaasay ku jiraan ummadiina soo meer baa lagu wareeriyey maantana waxa weeyaan taa hargeysa dhexdeeda waxa ka jiray soo meertaa un baana jirta dee soo meer lagu jiri maayo 30 sano soo meer lagu jiray 1994 ilaa imika cabdiraxmaan cali iyo adigu soo meertaad wadeen iyo xaalad abuurkaad wadeen ilaa dowladiina cigaal ilaa dowladiina real gadaafayntaad ku wadeen un bay soo meertaad wadeen un baad wadaan laakiin tan aan imika anagu ka hadlayna aan u jeedno waxa weey taasi waa mid gaara labada qodob way kala yihiin qodobka odayada ee calmada loo maartay soo sheekalka lagu leeyay xalin hadii ka gaadheen waad ku maadsantihiin dadka walaalaha ahaa in maartay ay isku calool xaadaan in maartay ay kala garbaxaan in la isku yimaado aad baan ugu faraxsanahay laakiin arrintaasi kuma laaqna ama kuma dhaxtarsana halganka taa waxaan kala hadlay gobolada awdal halganka taasi kuma jirto iyana la isku qaldintaana hadalka waan ku dheeraaday waxaan rabaa markaasi in arrinkaasi in waxbaa qaldane sartu meel bay ka qurunsan tahay arrinkaa in la saxo hoggaanku arrinkaa in la iskugu noqdo dhalinyaradana mid baan leeyaho weli dhalinyarada waxaad moodaa qodobka dhalinyaradan rabaa inaan usoo noqdo dhalinyarada waxaad moodaa in systemkan ay la jaan qaadeen oo ay irbad ku mudsan yihiin oo waxaan anigu lababa waa iskaga kay dhaxsiyaacsanta oo waan fahmi laaya ma jaamacadda camuud baa loogu dhigaa revolutionkii ka jira meesha oo kacaanka maanta ka jira meeshaasi ayay jaamacaddu lakjarada iyo maartay koorasyada ay dhigta qayb ka mida kooras ka mida ku jiro la leeyahay maartay isoo sheegay Somaliland waxa weeyaan educationka in lagu daray oo aan la cabsiyo la leeyahay maartay waa in la ilaaliyo xuquuqda maartay isoo sheeg dalka iyo amnigiisa waxa ma kooras nooca inuu ku jiraan malaynayaa oo la siiyo maadaama waxaan ogahay manhajka Somaliland in manhaj u gaara la sameeyay oo uu qoran yahay wasaaradda ka soo baxo iskuuladana lagu dhigo dhalinyarada waxaan malaynayaa kaas iyo in iyagu ay wax ka qaldan yihiin oo sidee wax u qaldan yihiin baan ilaa imika garan laaya war waxaan leeyahay meeshaas dhalinyaro adduunyada laf dhabar baa jira laf dhabartu waa dhalinyaro kacdoodka dhalinyara keena waad ogtihiin mar dhigeena wadannada aan jaarka la nahay
Ethiopia waad ogtahay wixii waday dhalinyaro ay ahaayeen ma aha abugadhaha ma ahayn nimanka la yidhaahaa ama odayada ah waxa kacdoonkaa sameeyey abugadhuhuna wuu ku raacay markii dambe abugadha may dhegaysanay waxa weeyaan waad ogtihiin 2 nin waliba hal nin baa keenay oo Jawaari Maxamed la yidhaaho oo dibad kadibna kacdoodkii markuu wadanka soo galay kacdoodkii uu sameeyey baa maanta dhalinyarada u kacday waxaan uga jeedaa marka dhalinyarada Oromia iyaga u kacay iyagana kacdoonka keenay bedelayna dhalinyaro marka wax ma bedeli karaan baa adduunka iyaga dhalinyaro wax bedelay war oday wax ma bedelo oday iyo hoggaan dhaqameed wax ma bedelaan dhalinyarada wax bedeshay wax bedel idinka laga doonaya tala dadkii laga sugayay inay go'aan talooyinkaasi maanta tala idiima hayno ayaa go'aan cad ay odayadu idigu siiyeen ee waad fasaxantihiin go'aanka markaa dambeed ka sugaysaan maxay tihiin idinka markaasi taasan idinka leeyahay ma waxaad sugaysaan fura in lagu dhiibo in lagu dhaar dhulkan adaa iskale maamulo war waxaan loo dhididin lama helo adduunka waxaan dib loo soo mirin dheefteedana lama helo kaad arkaysa maanta sidaa kula dhaafiye duur buu u galay soomaad garan isagii maanta dhibtii shalay tooli uu ka cabanaya maantana inuu kugu sameynaya adiga waxaan u arkaa arinka qalinkaasi mid argoosiya inuu yahay qalinkiisuna waa argoosi isagana wuxuu wadaa waa argoosi marka waxa weeyaan ninaan taada aan meel marinayn tiisaydnaha meel marin ma doonayno markaa awrkiraalahana iska ilaaliya waxaan idigu dardaarmayaa waxaan idigala hadlayaa waxaan tala maanta iyo halkan idigu soo jeedinayn dhalinyaro ka kaca meesha cidda dulmani waxa weeyaan odaygaa waa casaraya sii socda odayadu way waqti ma gartay odayadana mid baan iyagana leeyaho waxaan leeyahay cimrigaagoo tagay ceeb laguma sogootiye war ceeb ha ku sogootiyena odayadan u sheegaya taa cimrigaagoo tagay ceeb laguma sogootiye hoggaankayaga iyo salaadiinteedii baa tiina ceeb ha ku sogootiyena magac xunna ha ka tegina adduunka dheef waa la helaa qofku haddaad dhimanaysana dhareerka la iska duwaa baktigaa kuu xalaale laakiin inaad waan dhimanayaa bahalaha looma cunay Soomaalidu tirada arrinkaa iska ilaaliya odayada qaarkood baan kala hadlaya dadku ma wada qabaan qaar ka mid ah arrinkaas ah sidaas ah saa u dhiga marka waxaan leeyahay halkaasaan idiga hadhayaa waxa weeyaan waa anigoo Mukhtaar Qarni waxa weeyaan taladana maartay videogaas aan idin soo duubayo ama maartay waxa weeyaan idin soo waxa weeyaan waa shirkiga jaraa'id buu daarnaa maanta iyo tala bixinta iyo tusaaleynta iyo hooda tusaaleyntan siinayo gobolada Awdal iyo Salal iyo Gabiiley iyo jabhadda dib u xoreynta ama jabhadda ururka waxa la yiraahdaa ururka dhaqdhaqaaqa gobolada Awdal baan anigu u aqaanaa loona sameeyay la iskuna gartay aqoon-yahaniintu markay isku yimaadeen magacaas ayaa u muhiima oo aan ku midaysanahay idiina wanaagsan oo waa Awdal movement group ururka dhaqdhaqaaqa gobolada Awdal weeya laba iyo mid manihin waa halka jabhad baa ka jirta oo bariga iyo galbeedka iyo maartay soo waqooyiga inay ku kala sugan yihiin ah waliba goobo kaliya kuma sugnaa geyiga Samaroon dago ama se geyiga Awdal iyo Salal iyo Gabiileyba ah in halganka ay ka wadaan ay tahay iyo goobtay ka wadayaan ay tahay waxa weey marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan idigu salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaah waxa weeyaan intaasaan maartay waa walaalkiin Mukhtaar Qarni Mukhtaar Dulmidiid aad midba midku ii yaqaano ayaan maartay u sheegay aad assalaamu calaykum waraxmatullaah